iPhone inaad iska soo qaadato ama camera aad iska soo qaadato oo sawiraan dad aad ka qaado taasi micno weyn ma soo kordhinayso, balse muhiimaddu waxay tahay sawirka aad qaado inuu ahaado sawir qurux badan, qofka laga qaadayna sawirkaas markuu arko waa in uu ku qancaa saan oo kale ya in lis xasdo waa laga fiican yahay. Haddaadan xaasid ahayn sawirkan si fiican u fiiri maxaa ka qaldan. waxaan idin leeyahay dadka qalbiyada wanaagsan, fadlan hadduu muuqaalkan idin soo gaaro subscribe, like, share. marka aad rabto horumar inaad sameyso, dadna way kugu dhiirigelinayaan si aad u guuleysato, dadna niyadda ayay kaa dilayaan si aadan u gaarin horumarka aad doonayso iyo guusha aad raadinayso. Ani waxaan rabaa guusheeda in aad idinka sabab u noqotaan, dhiirigelintiinna waxay ii keeni kartaa guul. waxa aan maanta sameeyey wax ka wanaagsanna waan la imaan karaa. khaasatan halkan waxaan kala hadlayaa dadka kaamiramanada ah oo kaamirada aqoon u leh iyo sawiraanta iyo muuqaalada sida loo duubo. aan lama hadlayo dadka intay sawir qaadaan guduud ka dhigaya, cagaar ka dhigaya, buluug ka dhigaya, jaale ka dhigaya, madow ka dhigayo, dadka sawiraanta aga ciyaaraya, iPhone-ada iska wato, kaamirooyinka iska wato, iska dhigaya inay kaamira yaqaan yihiin. lama hadlayo, balse waxaan la hadlayaa dadka kaamirada aqoonta u leh. fadlan waxa iga qaldan qaybta commentiga waad ila wadaagi kartaa. idinma dhahayo an aqoona idin dheera, idinma dhahayo, balse yaan is hagrin, yaan is xasdin. sawirkan kuu muuqdo markiis hore saan ayuu ahaa, handana waa sidaan. waqti ayaan ku bixi. haddii aad i dhiirigelisaan maxaad u malayn kartaa walaalkay ama walaasheed in aan la imaan doono natiijo midaan ka wanaagsan, kasii wanaagsan. haddii aad rabto sawiraan sidaan oo kale u qurxoon in lagaa qaado, waa ila soo xiriiri kartaa anigoo ah kaamirmaanka jaceylow, ku magac dheer guuldaro jaceyl, kuma dhacaya ceyl taala iisoran ilaa iyo guraceyl. guuldaro jaceyl dhammaantiin wuxuu idin barayaa kalgaceyl kama dheera jaceyl, wuxuu ka qadayaa maqaayadin dhaceyl. guuldaro jaceyl kas imaag uma gala gef. inta wanaaga jecel, inta qalbiyada wanaagsan, aan lama hadlayo dadka habeenkii markay seexanayaan uqdada ku seexanaya, lama hadlayo, balse waxaan la hadlayaa dadka qalbiyada wanaagsan. waxaan idin leeyahay guul iyo gabadnimo. qof waliba wuxuu leeyahay hami iyo riyo, qof waliba hamiga iyo riyada uu leeyahay Ilaahay ha u fududeeyo.